Bismillahirrahmanirrahiim. Kulanti waxaan wanaagsan dhammaan khiyaarta aan jeclahay maantana waa Cabdisalaam Caqiil oo raba inuu idin wadaago si aad u samaysan lahayd loogo qurux badan ama loogo adig u gaar ah. Marka hore application badan way jiraan oo loogo lagu sameeyo sida Alog oo kale iyo hadda application-kan aad u jeedaan The Logo Creator. Marka maantana waxaan rabaa inaan idin la wadaago sidaan u samayn lahayn loogo noocan ah oo sidan oo kale waa loogo aad u fudud waayo waa loogooyin halkan ay application-kan markaa soo furatid application-kan waxaa ku jiraan loogooyin fara badan. Loogada hadda aan sameeyay application-kan ayay ku jirtaa, laakiin waxay u baahan tahay in la sii habeeyo oo kaliya bis. Hadda loogadan oo kale waxaan oo dhan waa loogooyin. Hadda marka ani loogada aan u baahanahay ayaa waxay tahay waa noocan. Loogadeedu waa noocan. Noocyo kale oo fara badan way jiraan, waa samaysan kartaa. Waa iska easy oo kaliya. Halkan ayaad ku dhufanaysaa oo ujeedaa circle-ka markaad ku dhufatid attributes ayaad imaanay way qaloocan tahay. Haddaad doonto waa toosinay halkan ayaad ku toosinaysaa. Ujeedaa ani hadda waan toosiyay waa jiide waa kaasa then inaad yareysida u baahan tahay soma ayada circle-ka ayaa ku dhufanay then waa yareynaysaa. Hadda aad buu iigu yaraatay then halkan saddexda rigma ayaad ku dhufanay kadib waa qabanay waa jiiday ayadan sidoo kale. Markaa jiidid waxaa sameynay oo kale waxaa loo baahan yahay inaad symbol text-gan halkan ku qoran symbol text-gan waxaa sameyn kartaa inaad ku dhufato then halkan ay text ku qoran tahay aa imaato magaca arabtid ama magaca aa leedahay ayaa ku qoranay oo beri ka maalin video markaa sameynaysid ama wax kale ama iskuul u sameynaysid looga si qurux badan ama magacaas ugu qortid. Halkan ay ku qoran tahay edit current text ayaad ku dhufanaysaa oo ujeeda hadda in magacii uu bedelmay halkan ay kusoo qoran tahay Cabdisalaam Caqiil. Sidoo kale markaa Cabdisalaam Caqiil aan halkan kusoo qoro waxaan u baahanahay inaan yareeyo soma halkan format ay ku qoran tahay ayaa imaanaysaa then halkan ayaa ka yareynaysaa. Kuwan kalena haddii aad rabtid magaca inaad isku dhadhaweyso halkan ayaa taabanay. Haddaad rabtid inaad kala bixisid sidoo kale haddaad rabtid in magaca uu noqdo mid khafiif ah midkaas ayaa taabanay midkan saddexaad. Laakiin ani waxaas oo dhan uma baahnin bis kaliya waxaan rabaa inaan magaca aan yareeyo. Magaca marka aan yareeyo waa qabana waa jiida magaca halkan ayaan dhigaa. Markii aan halkan aan dhigo magaca waxaa kaloo ii dhiman in aan calaamadii halkan xidiga u ekeyd inaan halkan aan keensado. Markii aan rabo inaan keensado halkan ayay igu jirtaa waan ku dhufanaa. Markaan ku dhufto waxaan oo dhan waa loogooyin waa ka sameyn kartaa, laakiin ani hadda uma baahno waqtigaas sidaas u dheerna waqtiga ayaan diidanahay inuu igu dheeraado. Then waatana halkan ay ku jirtaa waa soo baxsanay waa yareynaysaa waa kaasa. Waxaa kaloo ii dhiman halkan official-ka hoos ii yaalay inaan ku qorto soma official-ka midkan ayaan soo qabsanaa halkan ayaan dhiganaa. Halkan markaan dhigto waa yareynaa. Markii aan yareeyo then waa kaasa waa kaasa waa qaloocinay halkaas ayaa qaloocinay then ayaa leedahay then halkan ayaa imaanaysaa add new text ayaa ku dhufanay. Add new text-ga markaad ku dhufatid halkan ay Cabdisalaam Caqiilka ku qoran tahay waa add new waa soma waa bedela sida hadday aan u bedelay like that oo kale ayaan u bedelaa. Edit current text ayaan leeyahay. Hadda waa ujeedaa inay official halkan ii soo gashay. Halkan format ay ku qoran tahay ayaan ku dhufanaa
then was like sidii haday oo kale waa ujeeda officialka inaan yareeyay then waa ku dhufana hadda officialka waxoogaa way toosan tahay sooma laakiin kan uu qalacan yahay farta impact igu dhufo farta impact salaam laftirkiisana dan halkan officialka ay ku qoran tahay format tag then waxaa sameyn kartaa halkan aa imaato weli normal ka dhig normal markaa ka dhigto sorry soo jiid halkan imaawo system pointerska ku dhufo impactiga okay dheh then markaan sidaas u sameysid waa dhameynay colorka waa ku dhufanay color ayaa tagay haddaa 3 nooca ka dhigaysid haddaa 4 nooca ka dhigaysid then halkan ayaa imaanaysaa oo ujeedaa inay qurux kusoo baxday sidoo kale waxaa muhiim ah muhiimadu waa hadda file ayaad export ayaa taabanay export markaa taabatid sawirka haddii aa hadda gbg aa ka dhigto wuxuu noqonaa iska sawir caadi oo kale sidaan like this ma naqanayo marka sida aan ugu dhigi lahayn sidaan oo kale aan videogan usoo dhex gashan lahayn waxaan ku dhufanaynaa hal export ayaan ku dhufanaynaa then halkan bng ee ku qoranta ayaa ku dhufanaysaa bng markaad ku dhufatid kadib waa save gareynaysaa marka aad save gareysid faylka magaca doonta ayaad ku qoranaysaa kadib okay ayaa dhehaysaa way socotaa markay save gareysanto mid hadda aan sameynay waa kana ujeedaan inay noocan